dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool wadankan Mareykanka ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin iyagoo mararka qaarna geysta mid lamid ah. xabsiyada Mareykanka ayaa waxaa ka buuxa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku eedeysan dambiyo kala duwan. sanadii 2010 waxaa Mareykanka lagu xiray 29 Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay ka ganacsan jireen gabdho aan qaan gaarin iyo daroogada. waxaana bilowgii sanadkan bilowday maxkamadaynta dhalinyaradan. haddaba waa maxay sababaha keena in xaalad noocan ay galaan dhalinyaradan? Cumar waxa uu wax badan kala socdaa Soomaalida gaangiska noqda, wuxuuna inoo sheegay inuu si dadban uga mid noqday duruufo ku yimid dartood, balse hadda wax lugaha kuma lahaan oo dhibaatooyinka ay leeyihiin ayuu si fiican u og yahay. sida ay ku bilowdaan ayuu inooga sheekeeyay. Iskuulka soo bilaabataa like mostly like badnaan inta badan high schoolka freshman yearka, because high schoolka sometimes waxa way wax lagu qasbaa because high school marka aadaysid isna adig kalina aadaysid maaha. dhalinyarada badankooda wax ku qasbaa ku sheegaya so adig kalina aadaysid maahan waa different communities ba imaanayso yaalkooda iskuulka aadayaan oo kala nooc so community kasto gang bay leeyihiin like sida maartay sida indhayarta camal they have gang their own gang leeyihiin. dhalinyarada Soomaali marka waxay go'aansadeen qaarkooda ina si oo markano protection u helaan camal ina iika dhaxdoodii maartay isku soo dhaweystaan the rest of the community, then wax soo baxda magacyaal in la isku bixiyo la dagaalay then dagaalkii iyo wixii so ina magac la imaatid magacii marka la imaatid waa gang baa waa registered gang baa noqotay. So but at the same time ma ahan gangas oo like that is like macnaha like ka dambaysa waxa way like waxan waa iski ciyaal caadi ah, they don't even know what gang is, waxaas kuma jirin. Like at the same time matan danta ku khasbaysa because of the other community ga la nooshahay. maalintii oo like your friend la dilo oo bari adil ku bursado oo bari kan kala dilo adina you gonna react wax iska celiya ku galas. So waxa iska celiya marka gasho then whoever's your homeboys you stick by them wala joogaysa iyo also soconaysiin so they get you back adina you get their back. dhalinyaradan ayaa waxa ay noqdaan kooxo kala duwan, qaarkoodna waxa ay xubno ka noqdaan kooxo gaangiisa oo aan Soomaali ahayn. taana waxa ay keentaa in isku dhac u dhex maro dhibaatooyinna ay isku geystaan. Suspended from the school suspension class school ka nagala buri after the dagaalki, then suspension ka soo noqday. haddana on top of that same bus raaci jirnay. So the next day baska anako saaran maxaa la dhahay saaxiibka xabada tusano oo dhaay xabada muujida ku heestaa oo ku dilay maanta bas marka ka tagtay. and then we used to have the same bus stop al hanjir so baska meesha uga degaa isku meel waay. so baska meesha uga degaa so ana maxaa dhaay marka hadasa maxaa ka qaadaysa I was afraid but like I did not care because there's nothing I could do wax ka sameyn karo ma laha wax ka tari karo ma laha because xabad ma haysanin ana gang ma ahan wax ma ku jirin. Then one of my friends told the bus driver school bus Soomaalida kale wax isku dagaalan waxa waaye la isku dilay waxa waaye like madow jiro oo Soomaali kale qaarkood soo adeegsanayo marka this the problem mesh ka bilaabanaysa marka Soomaali kale maxaa jiro oo sina like this gangs was Somali community dhexdiisa waa. And that was for mainly protections, like to protect like little kids was trying to protect themselves from other society or iska celinayaan the community kale dad kale markan ku dhex nool yihiin gangyaash kale iska celinayaan. At the same time haddana waxaa jira Soomaali kale oo ku dhahaya crip ba Soomaali kale ku dhahay arkaysa blood ba and then they associate like they are like they saying they are like in a crip iyo blood waxa waaye waa gang oo Mareykanka jira waa. Soomaalida qaarkood ka mid noqdeen. So marka maxaa dhacday asiga wuxuu ku leeyahay madow la associate gareeya so Soomaali waaye but like asiga wuxuu u shaqeeyaa madow la shaqeystaa adimo la shaqeysatid waxa shaqo ma ku lehed United Blood Gang United Crip Gang waxa ma ka tid wax ma ku darsatid but just because you don't adu waxba kala dhaxeeyna ma taqaana just because maxaa wax naga la ka dhaxeen waaya Soomaalida dhexdooda ku dila. So mainly waxa sameeyaan like Soomaalida dhexdooda isku dirayaan just because waxa la dhahayaa Soomaalina la dhahayo crib tahay
so to get you pledge markano si oo street career ka u heshid I want you to mark that Somali do ina soo cuntada kaara walda so they do it. Ha so ina again like how much markano like maxaa u sameyn kartaa for like because when you say gang wise like your family amal you know what I mean so maxaa u sameyn kartaa amal so like yeah so you got to do what they told you to do marka kadib kolka ay xaajada la xumaato dhalinyaradan oo ay damcaan inay dib isku saxaan ayaa waxa ku adkaatay in shaqo ay helaan oo noloshooda ay dib u hagaajiyaan iyadoo taa ay sabab u tahay dambiyadii ay horay u galeen oo ku kayd garaysan kumbiyuutarada waxaana ay waayaan cid wax ku aaminta ama shaqo siisa so shaqo daraasada xataa amal shaqo laga dhigaya so most of the ciyaal waxa dhalinyarada Soomaali wax ku koos gareena waxaas waa because they cannot get a job but the shaqada sidan shaqo ma heli karaan there's a lot of them or markino like that they tired of this lifestyle but they want to change maxaa rabaa inay iska dhaafaan shaqadan oo ku jiraan then they cannot do it because nobody will give them a second chance macnaha like qof oo shaqsiinaya ma lahan oo dhahayo okay this person has been this long